dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdirasaaq Abshir ayaa waxa uu sheegay Kismaayo gacanta dawladda inaysan ku jirinin qorshaha dawladuna uu yahay gacanteeda inay ku soo noqoto. In dhawaalana waxaa jirtay in qalabka warbaahinta qaarkood ay waraysiyo ay la yeesheen la taliyaha siyaasadda ee madaxweynaha Soomaaliya Yuusuf Al-Azhari isna laga soo xigtay inuu sheegay dawladdu in ay xoog ku qabsan doonto magaalada Kismaayo oo aan gacanteeda ku jirin iyo magaalooyin kaleba, iyadoo magaalada Kismaayona ay iminka gacanta ugu jirto xoogag islaami ah oo isbahaystay oo toddobaadkii hore ka qabsaday ciidamadii xildhibaan Barre Hiiraale oo muddo halkaasi joogay. haddaba wariyaha BBC-da Cabdirasaaq Xaaji Catoosh ayaa magaalada Nairobi ku wareystay Yuusuf Al-Azhari waxaana uu weydiiyey isbeddelka magaalada iyo sida ay dawladda ku-meelgaarka ahi u aragto. waa dhab weeye cid meel xoog ku qabsata haddii raalli laga noqon maayo, maxaa yeelay deegaanka dad baa u dhashay, dad baana deganaa, dadkii deganaa inay iyagu doortaan dadka muxuu ahaayey meesha maamulaya oo dawladduna ay la ogaato ayaa waajib ku yahay. saas darteed dawladdu xoog meel lagu qabsaday marna raalli kama noqonayso. marka ma Kismaayo baad ka xuntiin mise meel walba xoog lagu qabsadaad ka xuntiin? dalka Soomaaliyeed oo dhan meel xoog lagu qabsado dawladda Soomaalidu ma ay ogola, mana raalli ka noqonayso. kuwa hadda haysta ama maxaakiim ha ahaadaan ama cid kale ha ahaadaane waxaad tidhahdeen raalli kama nihin gelitaankooda ay magaalada galeen. kuwii horey u joogayna maxaad ka aaminsanideen? isbeddel xoog iyo xoog weeye, laba xoog oo iska saaray meesha weeye. shacabkuna raalli kama aha in xoog lagu muquuniyo oo xoog lagu qabsado deegaankiisa. saas daraaddeed xoog bedelay haddee wax bedel uu keenayo ama wax wanaag uu keenayay ma jirto. marka maxaad horaan oga hadli weydeen oo hadda markay maxaakiimta yimaadeen aad oga hadasheen? horeyna waa ka hadli jirnay, weligayana waa sheegi jirnay in dalkaas aan xoog lagu haysan karin. ummadda Soomaaliyeed ee degani meesha inay tabaalaysan tahay, dhibaato badan aragtay. saas darteedna ay wakhtigii la gaadhay hadda in doorasho xor ah loo sameeyo dadka deegaanka oo iyagu ay ismaamulaan, dawladduna ay halkaa ku ogaato, hoosna yimaadiin dawladda federaalka ee ku meelgaarka ah. Azhari waxaa la isweydiin karaa marka aad saa u hadlayso Kismaayo aad ka hadlayso, shacabka deegaankan aad ka hadlayso, ka dawlad ahaan inteed idinka reer Kismaayo ku ogeedeen? maxaad u hayseen? ma nabad baad u hayseen? ma dagaal baad u hayseen? goormaa Kismaayo idinkugu dambaysay? maxaad kala socoteen? sidaad ogsoon tahay mar alla markii ay dawladdu ay baydhabo tagtay ay ka guurtay Nairobi, isla markiiba madaxweynaha iyo dawladdiisu waxay magacaabeen maamul dhisan oo wax alla wixii loo baahnaa ee maamul ahaa loo dhammaystiray. maamulkiiyo sidii u dhisan oo dawladdu aqoonsan tahay oo gacan ay siisay dawladdu iyaa lagu soo duulay oo maamulkii la dhisay la burburiyey. waxaan ictiraafsannahay maamulkii waagii laga saaray meesha ee dawladdu ay dhistay ee u dhammaystirnaa ilaa iyo heer cashuur qaade, ilaa iyo laga bedelayo oo doorasho cusub imanayso ay shacbigu dooranayaan xukuumad cusub ama maamul cusub. annagu weli waxaan ictiraafsannahay maamulkii waagaa dhisnaa ee laga saaray magaalada Kismaayo. laakiin maamulkaas isagii laga bixiyey Kismaayo oo muddo hal sano iyo xoogaaba ka maqnaa goboratoorihii iyo gudoomiyihii degmada iyo maamulkan aad sheegayso, soo isagii Kismaayo laga bixiyey ka maqnaaya qaarkood Nairobi joogaan, qaarkood Baydhabo iska joogaan, oo meesha ay ahayd meel ay ka talinayeen kooxo qabiil ahaan isu bahaystay. haddee waataan sheegayo xoog baa lagu muquuniyey maamulkii meesha ka dhisnaa, xoog baa loo sheegtay, xoog baana meesha lagaga saaray. annaguna qoladii xoogga kaga saartay dawladda Soomaalidu weligeed ma ayna ictiraafsanayn, waxayna sugaysay ilaa iyo inta muxuu ahaayey maamul dambe shacbiga uu doorto uu ka dhismayo. marka taa goormay imanaysaa haddii idinkii tabar aad u weydeen dadkii kalena sida aad sheegaysa ee magaalada haysta aadan ictiraafsanayn oo aadan aqoonsanayn? Kismaayo waxaan u haynaa in dawladdu ay mar dhow hadduu ilaahay yidhaa ay tallaabo ka qaadi doonto iyadoo la kaashanaysa dadka deegaanka u dhashay ama deegaanka iska leh, iyadoo la kaashanaysa ay ka saari doonto dadka kan hadda xoogga meesha ku haysta, hadday maxaakiim yihiin iyo hadday shabaab yihiin iyo hadday waxay doonaan yihiinba. waxaa lagu heshiiyey oo Jabuuti lagaga heshiiyey waxay ahayd in nabad lagu soo dabaalo dalka, doorasho xor ana laga sameeyo deegaanada ay dadku degan yihiin ee Soomaaliya. haatanna tallaabay dawladdu ka qaadaysaa, ma eegan karto mana dhowranayso muxuu ahaayey xoog ku bedel. waxaa loo baahan yahay shacabku inuu dadkaas dawladda la soo xiriiro oo markaas la isla dhiso. marka dadkaas laga saaro meesha la dhiso
muxuu ahay maamul loo wada dhan yahay marka talaabadaas weerar bay noqonaysaa oo Kismaayo waad weeraraysaan ama weerar ha noqoto ama si kale ha looga saaro laakiinse xoog laguma haysan karo magaalada Kismaayo sidii uu hadda mar dhaweydba madaxweynuhu sheegay iyo dawladdiisu marka aad sida u hadlayso Azhari ee aad leedahay Kismaayo ama weerar aan ku qaadno ama si kale aan ku qaadnay maxaakiimta ma joogayaan waxa la og yahay tabarta dawladda maanta baydhabo oo maalin walba bambooyin lagu qarxiyo muqdisho waxa ka jira aan ognahay meel aan ahayn oo dawladda maamulkeeda si buuxda gacanta ay ugu hayso ma jirto baydhabo iyo Kismaayo masaafo aad u dheer ayaa u dhaxaysa sidoo kale muqdisho iyo Kismaayo waa 500 kilomitir tabarta 500 kilomitir aad ugu duuli kartaan xageed ka keenaysaan anigu waxaan hubaa nimankan hadda uun maxaakiimta garabkooda muxuu ahay dagaalada inayna xoogii ay lahaan jireen lahayn oo maanta aad iyo aad u wiiqan yihiin taasna waxa uu sababa inay kulmo meel intay isku urursadaan ku dhufo ka carar wax la yiraahdo ay sameeyaan taasna waxay tusaysaa daciifnimadooda meel ay intay qabsadaan ku waari karaan ay haysan karaan ay oran karaan waa haysanaa dalka Soomaaliyeed oo aan ka cararayn ma jirto taasa u daliila in muxuu ahay nimanka kan ay wiiqmeen dawladuna ay hadda tabarteedii dib u soo noqotay qabsanna doonto meelaha Soomaaliya oo dhan ay gacanta ku soo dhigi doonto mar dhow hadduu Ilaahay yira markaasna maamul loo wada dhan yahay oo shacabku raalli ka yahay oo gobolladii la kala qaybiyo oo federal laga dhigo la sameyn doono sidaasna ay ku dhismi doonto dawlad loo wada dhan yahay oo ummadda oo dhan ay raalli ka tahay Azhari 14 bilood baa xilkii dawladda ka dhiman ee loogu talagalay inay jirto waxaadna moodaa hadda inaad maalinta ka dambaysan aad dib u sii luudaysaan meeshii la rabay inaad hore u socotaan xag siyaasad xag military xag kasbasho bulsho hadday ahaan lahayd waxaad ku soo qaban weydeen 4 sano iyo xoogaa 14 bilood ku qaban kartaan ha waa lagu qaban karaa intii hore waxay ahayd hadee tababar bay dawladdu ku qaadatay waana loo diiday inay meel fariisato oo maaragtay ay dalka ku maamusho laakiin hadda caqabaadkii naga hor yimid ee horay aan u loo soo bartay ama loo soo maray ayaa waaye aragnimo ziyaada ah dawladda hadda siiyay 14 bilood gudahood waxyaalo badan oo isbedela ayaa Soomaaliya lagu arki doonaa Yusuf Azhari la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya oo u waramayay Cabdirasaaq